dibadbaxu muxuu dhaliyaa amase maxaa laga dhaxlaa waa su'aalan isweydiin karno goorta ay timaado inaanu ka hadalno dibadbax wuxuu ku saabsan yahay iyo waxyaabaha inta badan laga dhaxlo inta badan dadweynaha caalamka dibadbaxaya waxay u adeegsadaan inay ku muujiyaan afkaartooda kala gedisan inta badan ku saabsan ama taabanaya fikir ama ficil iyagu waxyeelo u keenayo kaasi oo salka ku hayo siyaasad nooca ay tahay dadka iyagu cabashada tabanaya ama muujinaya ay ku nool yihiin haddaba waxaan ognahay goorta dibadbax u yimaado dadyowga tabanaya ama cabashada gudbinayo oo doonayo dawladda ama maamulka markaasi iyaga culayska ku hayo ay u gudbinayaan in intooda badan iyagu ay doonayaan inay ku helaan xuquuqdooda asaasiga ah ama tan madaniga waxaan ognahay oo dunida ay soo mareen dibadbaxyo taariikhda dhaxalgal u noqday haddii aanu ku hormarno dibadbaxyadii looga soo horjeeday dilkii George Floyd kadib markii uu askari ka diiwaan gashnaa magaalada Minneapolis uu awood sheegtay isagoo dhulka ku reebaya dhuuntana looga ka saaraya dhacdadaasi ayaa waxa ay sababtay in boqolaal kun oo gadoodsan ay isugu soo baxaan kontonka gobol ee Mareykanka waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa laga xusaa maalinka qaranka ee dibadbaxa taasi oo lagu maamuuso kacdoonkii ka dhanka ahaa midabta koorka foosha xumaa ee waddanka ka dhacay 1950kii dibadbaxa ayaa waxa uu reer Koonfur Afrika u noqday midka kaliya ama aaladda ay uga hortagi karaan tacaddi ama xadgudub sidoo kale khudbadii caanka ahayd ee uu 1963 uu jeediyay ninkii dadka madowga oo ololeyn jiray ee lagu magacaabi jiray Martin Luther King ayaa waxay noqotay mid ka mid ah siyaabaha dadyowgaasi ama qoomiyadda madowga ee ku nool Mareykanku ay ku soo gudbinayeen tabashadooda gaar ahaan waliba tacadiyada iyo dhibka haystay dadka madowga u geysan jireen dadka cadaanka oo iyaga xilligaasi ka tira badnaa waxaana uu kasbaday ninkaasi loogu magacaabo Martin Luther King in uu isugu soo ururiyo magaalada Washington ilaa iyo 200,000 oo qof oo madow ah kuwaasi oo soo jiitay indhaha caalamka waxaana ay ahayd kaliya khudbad uu ku muujinayo tacadiga iyo cadaalad darrada dadka madowga lagu sameeyay haybsooc ama midabta koorku uu ku tusinaya caalamka waxaanan dhihi karnaa arintaasi ayaa waxay ahayd mid loo maray mudaharaad ama dibadbax waxa ayana is xasuusin mudan dibadbaxyadii loo adeegsaday duminta gidaarkii muddada 28 sano kala qaybinayay bariga iyo galbeedka magaalada Berlin kadib dibadbaxyo ka dhacay gabi ahaan daafaha dalka Jarmalka kaasi oo qaatay bilooyin ayaa waxa uu sababay in darbiga dhulka lala simo haddaba doodaydu waxa ay tahay dadkayga siday u arkaan dibadbaxii ka dhacay caasimadda Soomaaliya halkuuse ka gelaya taariikhda dalka Soomaaliya dibadbaxase yuu dan u yahay dibadbaxa ayaa waxa uu dan u yahay dalka iyo hanaanka dawladnimo waxa lagu saxaa hanaanka qaloocan ee dalka iyadoo loo marayo qaab uu ku dheehan yahay ammaan iyo deganaansho mudaharaadka ahmiyadda uu leeyahay ayaa waxa ka mid ah in dhinac uusan cidloonin amaba uusan dareemin in la gacan bidixeeyay dibadbaxa ayaa waxa uu sababaa in la dhagaysto garabka cabanaya taasi oo saamaxdo in dood caafimaad leh ay ka dhalato xalna laga gaaro waxa la isku hayo dhinaca kale waxaanu ognahay khasaaraha weheliya dibadbaxyadu inta badan ma noqdaan kuwa nabdoon waxaa jira koox amaba kooxo danahooda ku fushada dibadbaxa waxa uu burbur u geystaa hantida dadweynaha si kastaba ahaatee maxaanu ka barannay dibadbaxii ka dhacay waddankeena Soomaaliya kaasi oo horkacayeen midowga mucaaradka oo ay kaga ashtakoonayeen arrimaha ku saabsan doorashada kadib markii xilliga xukuumaddu uu idlaaday dawladdu waxaa saarnaa waajib ah in mucaaradku
ay kala shaqayso sidii cabashadooda ay ku dhagaysan lahayd waxa ayna ahayd inay u fududayso mucaaradku howlahooda dibadbaxa amaba mudaharaadka dhanka mucaaradkana waxaa saarnaa mas-uuliyad ay ku ilaaliyaan ammaanka iyo kala dambaynta waddanka waxaana cad oo maragmadoonto ah in labada dhinacba ay waajibkooda oofsan waayeen oo ay gabeen waajibkooda guud ahaan walwalkaygu kuma saabsano amaba kuma eka keliya xaaladda waddankayga Soomaaliya oo maanta uu ku sugan yahay balse uurkutaaladayda ayaa waxa ay tibaaxaysaa wejiga uu yeelanayo jiilka berritol ama jiilka dambe ee Soomaaliya uu yeelanayo kuwaasi oo ay tahay in ay la wareegaan maamulka howlaha qaran ee waddanka Soomaaliya waxaana isla markiiba ay imanaysaa inaan isweydiino jiilkani maxaa looga tagayaa amaba kuwa maanta ku jira in siyaasadda waddanka Soomaaliya maxaa dhaxalgal ah oo ay uga tagayaan jiilka soo socda ee dambe oo iyaga ay tahay in waddanka siyaasaddiisu ay hantaan arintani ayaa waxaa isweydiinta noo keenaya ay koow ka tahay in dadkaasi jiilkani maanta ay doonayaan inay kala ogaadaan waxa saxda ah ee dhanka sharciga waxa khaladka ah dibadbaxyada sidoodaba haddii aanu dhahno way khaldan yihiin maxay u arkaan jiilka maanta ee iyagu soo koraya haddaanu dhahno way saxan yihiin maxay u arkayaan balse waxaan filayaa inay maanta mudan yihiin in loo sheego amaba la ogeysiiyo dibadbaxa sidiisaba muxuu yahay amaba muxuu dhimaa amaba muxuu keenaa su'aashani siyaabo kala duwan ayaa looga jawaabi karaa iyadoo waxa danta u ah ubadka amaba jiilka aayaha dambe la wada garanayo balse haddii aan wax laga qaban mustaqbalka jiilka soo socda waxaa mustaqbalkoodu u muuqdaa mid mugdi sii galaya